بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الرحمن oo idinka soo salaamaya xarunta badbaadada team ee magaalada Nairobi. Waxaan u maleynayaa idilkiin inaad wanaagsan tihiin dhammaan qoysaska iyo qaraabaduna inay fiican tahay. Inta dabadeed asxaabba maalin dhoweyd aad ila soo xiriiday oo leh waa problem baa jira, dhalinyaradii buuq baa jira, social media dhibaato ka jirta, waa la iscaayay, waa la isku fardo baxay, waa la kala xishoon waayay, too much videos waxa soo dhan baa jira. Marka maxaa ay waxaas kula muuqdaan iyo la mid ah waqtigaas xaalad baa taagneed. Marka xaaladu taagan tahayna in la dhex galo lagu dhabaqmo lagu qasmo waxa ma hagaajinaysa wax way sii luminaysaa iminka waxaan u maleynayaa inay wax walba ay istaageen hawluhu ay degan yihiin. Hadda waxaan rabaa marka haddii aan la idmo maskax degan inaan wax walba ku qiimeeyno ka bulsho ahaan ka Soomaali ahaan ma joogna waqti la isqabsado ama la doodo, ma joogna waqti qabyaalad la isku qabsado, ma joogna waqti dhalinyaradu ay isjiido arrimahaas oo dhan waxaan rabnaa inaan isla falanqeyno. ربع قرني بان هدير أينو حالته كبحسنها مل أينو شوقنا أينو جرنا الدنيا آخره مل لما شوقنا ودنك واسكا سوق حناي بدن كينا مسيد لو بدن يهي كو شوقنا دي وينو خور هينا سيد لو نولي هي وحول بس ديهين أنتي سوق حدا هالشيء فرصتها أما أي وحكو بران لهاين أما أي ودنك وحكو علين لهاين هدي أي كم مشغولان waxyaalo kale oo dana gaar ah laga leeyahay oo dadkii lagu soo dhaxtuuro kale waa qiyaasayna waxa ka iman kara ama ka dhalan kara dhalinyaro horta wadanka idinkaas kale taas waa inay aamintaan. muhiim ahan qofkan kugu soo cabaynaya reer hebel bay ahaan jirteen iyo reer hebel bay ahaan jirteen iyo reer hebel wala haysan jiray iyo reer hebel annaga sidan ahayn iyo annaga maanta hayna iyo arrimahan oo dhan idinka muhiim idin maahan. idinka waxa muhiim idin ah sida u helaydeen mustaqbal fiican. intiina qurbaha joogta oo ugu badan fiidiyoada ugu badan laga soo duubay wadanka gudihiisa ma ahayn, wadanka dibadiisa ay ahaayeen oo la isku caayayo la isku dhaleecaynayo waana wax soo laalaabta ma aha wax maalin dhaweyd kaliya ahayd horeyna waa u jirtay arrimahaas oo kale. taa waxaan idinka oran lahaa war u tashada wadankiina, wadanka idinkaas kale, wadankan odaygan sii socdaay ma leh, odaygan sii socdaay waa ku daayay wixii uu la iman lahaana waa la yimi, wuxuu soo hagaajin lahaa waa soo hagaajin, wuxuu soo baabiin lahaa soo dumin lahaana wuu soo dumiyay. haddeer waqtigu waa waqtigaagii adiga, waqtigu waa waqtigaagii, waa inaad ka faa'iidaysato, waa inaad bulshada wax ku soo kordhiso wanaag iyo isjacayl iyo waa in aad horumar la timaado. ma joogno waqti aan qabyaalad ku qabsanayo reer hebel wax ku qabaa hadda ma jiro. adiga tusaale ahaan daawanaya hadaan ku weydiiyo qabiilkiina maxaad ku qabtaa oo faa'iido odaygii qabiilkiina ka askumay meel uu ku dhintay xitaa iyo meel uu ku dambeeyay iyo taariikhdiisa waxba inaan lahayn baaba way u badanta waxaad ku qabtaa ma jirto. adiga dhibaato ku qaba qabiilkaas mar dib lagu leeyimaado mar mid qabiilkiina wuxuu geystay adiga lagu aaneeyo oo aad eersato mar dhibaato kale la kulanto adiga marka dib ku qabay isagu faa'iido kuma qabtid. taas horta marka hore waa inaad go'to labo qabiil oo waxayna burburiyeen baabiyay xaaladda inaga saaray ma ahan ilaa maanta 25 sano kadib haddana aan isku sii mashquulsanaano. maalin waxaan arkay muuqaalo barnaamijyo laga sameeyay Muqdisho oo wariyaal loo xidhay oo xildhibaan ay ka hadlayaan iyo arrimo noocaas ah. intuba waxay la xiriiday gumaysi waa wadanku ku jira baa laga dooday. gumaysi waa wadanku ku jira markii la yiri xamaasad wax soo yaacay haddana wadankii waa gumaysi weyn de maxaa gumaysi iska dhicisa ama wax kale adigii baa isku mashquulsanay, adigii baa lagu kala jarjaray oo lagu mashquuliyay oo la isku kaabeeyay oo la isku kaadiray. arrimahaas oo dhan haddii aysan jirin de cid walba waad ka hortagi lahayd sidii ay dadkuna ahaan jireen Soomaalidu ay ahaan jirtay. cid walba waad iska dhicin kari lahayd. hadalkaaguna wuxuu ahaan lahaa mid waxtar leh, awooddaaduna waxay ahaan lahayd mid waxtar leh, mid kasta oo shaqayn lahayd. waa la haystaa waa gumaysi waan haystaa gumaysi waan diyaar ma unahay horta inaan annagu gumaysi ka baxno. Ethiopia leedahay waxaan iyo baad leedahay baan haystaa baa lagu doodaya. yuhuud baa ku qabsanaysa oo dadka aynu adduunyada ku nicabnahay baa ku qabsanaysa oo ku halaajinaysa haddii aanad isku toosnaanin oo isku duubnaanin oo magacaaga iyo muuqaaga uuna shaqaynin. intiina badan oo de muuqaalada soo duubay qurbaha ku nool waa taqaanaa sida aynu adduunyada ka nahay, waad la socotaan. qaxooti baynu nahay, dad baahan baynu nahay, meel kasta gaajo ku dishay, meel kasta ku rafaadsan, tuka cambaar leh baatay. haddii aad safrayso eerboodada waa lagu dhibaa oo waad ka warhaysaa, socodkaagu dadka uu dhibaa, meel kasta cunsuriyad iyo hawl baad kala kulantaa.
adigoo waxaasoo dhan haddana la kulmayo oo maalin walba aynu maqlayno qof la dilay mid si xun u dhintay mid si xun xabsi ugu jira mid si xun bad ugu dhintay mid si xun qaxooti ugu dhintay mid si xun u baaba'ay inagoo waxaasoo dhan arkayna yaan haddana intaan waxaasoo dhan iska laabno waxaynu maskaxdeena ku xidhan wixiina baabi'iyey ee dadkaba inaga reebay arrimahaas waa in laga waantoobo waa in laga soo jeesto waa in loo soo jeesto war isjacayl iyo wadaninimo annaga haddeer dhibaato aragna dhalinyaro ahaan mana aynan geysanin inagu dulmi aynu waxaan ku mutaysanno dadkan waxaan anugu tusaale ahaan iyo inagoo dhan badankeeda ama waynu burbur baynu ku dhalanay ama burburka ama dowlad nafle mayna arag ama dowlad waxba kamaynan arkin waxaan oo dhibee dhacay waxaan anagu keensanay ma ahan ka dhalinyaro ahaan waa wax ay keensadeen dad yowgii inaga horreeyey wadadii ay qaadeen dee ma ahan inaan qaadnay waa inaan ka leexanno waa inaan war annaga maxaa dan noo ah war taayadu xaggee ku jirtaa war xaggeeba sidee baan u noolaan karnaa war waddankeena shidaalka ku jira waad ka warhaysaan oo beeraha waad ka warhaysaan oo xeebta ugu dheer afrikeenu leenahay oo wax walba waad ka warhaysaan waa in loo soo jeesta khayraadka waddanka cid walba dhib way soo martay oo ma nihin anagu dadku ugu horreeyay dhibaatooyin noocan oo kale la kulmay cid walba way soo martay laakiin waa inaan dee u soo jeesanaa wax walba waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad wixii isdil lahaa way dhinteen wixii isdayn lahaa waa isdaayeen inta nool aan u tashanno inta nool aan u tashanno cid aan wax la yeelin ma jirto Soomaali qof walba waxbaa la yeela reer aan wax la yeelin iyo guri aan wax la yeelin iyo tuulo aan wax la yeelin ma jirto qof walba wax uu is yeela haddeer aan u soo jeesano war wixii hore ma iska daynaa oo ummaddeena ma hagaajisanaa dhulkeena ma dhisanaa waxaan u malaynayaa in ay arrimahaas oo dhan ay muhiim inoo tahay qodobka ugu dambeeya rabay inaan kusoo gabagabeeyo haweenka Soomaaliyeed gabdhaheena sharafta badan haweenka Soomaaliyeed waa tiirkii lagu taagnaa inta burburka lagu jiray 25 sano dadka oo dhan waxa loo baxsaday inta nool Soomaalidu waxay u baxsadeen waa haweenkii walaal ha ahaato xaas ha ahaato hooyo ha ahaato dadka loo baxsaday waa haweenka Soomaaliyeed waayadan dambe qaralaasaha ugu badan dhinaca gabdhuhu ka soo badanaya muuqaalada ugu badan dad u fiirsato dhinaca gabdhuhu ka soo badanaya xamaasada ugu badan dad u fiirsato dhinaca gabdhuhu ka soo badanaya cayda iyo arrimahaas oo dhan gabdhaha waxaan leeyahay sharaf baa leedihiin idinkaan idinku noolnahay oo idinku taagannahay idinka halkaan soo gaarsiiyay wax walba waad la soo qabateen bulshada iyo dalka iyo dadkaba aad baad u soo caawiseen waxaan rabnaa wanaagii aad noo soo sameyseen ee aad u soo bulshadiina aad nafta iyo maalkaba ugu soo hurteen inta yar ay loo dhimanay aynu ku dhismayno ee wadanku inoogu hagaagayo ee dadku inoogu hagaagayo ee dalku inoogu hagaagayo waxaan idinka codsanaynaa inaad sidii aad noo ahaan jirteen oo ahaataan koow labo ilmaha iyo caruurta iyo xaafadda qoyska inaad naga soo dhistaan qoyska aad naga soo dhistaan waxa inoogu hagaagi kara bulshada oo dhan wax walbana way inoo hagaagayaan meesha aan doonaynana waxay ka soo dhismi kartaa waa askunka xaafadda haddii aan layno gabdhahana saasaan leeyahay muuqaaladiina iyo arrimahan badan ee dib ka soo badanaya ee aynan lahaan jirin dabeecadaha dambe ah haddii aan la idmin iska joojinona waan ku talin lahaa aad ba dhammaantiin u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh